ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo wali howlgal ka dhan ah ururka al-shabaab ka wada deegaana ka tirsan gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ayaa maanta la wareegay deegaana ka tirsan labadaas gobol. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ciidanka qalabka sida ayaa sheegay in ciidanka dawladda ay al-shabaab kala wareegeen deegaanka Sinadhaqo oo hoostaga degmada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Taliyaha ayaa tilmaamay in howlgallada ay u socdaan sidii loogu talagalay isla markaana ciidamada qalabka sida ay ka go'an tahay iyaga oo kaashanaya dadka shacabka ah in guud ahaan al-shabaab ay ka saaraan dalka. Deegaanada ay maanta la wareegeen ciidanka xoogga dalka iyo dadka shacabka ah waxa hore ugu sugnaa kooxda al-shabaab. Imikana Hiiraan taliyaha ururka 8aad guutada 18aad ee ciidanka Gorgor Kabtan Maxamed Xirsi oo horkacay howlgalka koowaad ayaa sheegay in ciidanka dawladda oo kaashanaya ciidanka deegaanka ay la wareegeen deegaanka Booco oo qiyaastii 50 kiiloomitir dhinaca koonfur kaga beegan magaalada Beledweyne. Deegaanka Booco ayaa muddo dheer fariisin u ahay kooxda argagixisada ah ee al-shabaab iyagoona halkaas ku dhibaatay jiray dadka deegaanka. Taliye Maxamed Xirsi ayaa sheegay in ay al-shabaab iska tageen deegaanka kadib markii ay ka war heleen inay ku soo wajahan yihiin ciidanka qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo horey dhowr mar al-shabaab ugu la wareegay deegaano iyo degmooyin dhowr ah. Tani markii ciidanka dawladda iyo dadka shacabka oo is abaabulay ay bilaabeen howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ay waxa ay kula wareegeen deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Deegaanada degmooyinkaasi ay la wareegeen dadka shacabka ah oo kaashanaya ciidanka dawladda waxa in muddo ka arriminayay kooxda argagixisada ee al-shabaab. dhanka kale xogaha aan ka helnay kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegayaan in kooxdu warbaahintii iyo qalabkii muhiimka ah ay ka rareen magaalada Ceelbuur ayagoona u rartay dhanka iyo Xaradheere. Cutubiyada kala duwan ee ciidanka dawladda oo kaashanaya dadka shacabka ah ayaa wacad ku maray inay soo afjaraan kooxda arxalaawayaasha oo bilaabay dagaal guracan ayagoona bilaabay inay dilaan dadkii marasta ahay iyo bilmageydadii sidoo kalena qarxiyaan shirkadii isgaarsiinta baraagii iyo ceelasha ay ku tiirsanayeen dadka shacabka ah. qaar ka mid ah ciidanka Galmudug oo ka tagay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kuna wajahnay deegaano dhowr ah oo ay ka taliyaan xarakada al-shabaab ayaa wax hadda ku sugan yihiin agagaarka deegaanka Jaaw oo qiyaastii 50 kiiloomitir u jira degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. maalmaha soo socda waxaa la filayaa in deegaanada Galmudug ay ka bilowdaan dagaallo looga xoreynayo kooxda argagixisada ee al-shabaab. Sidaad u aragtaa adigu ku soo dhawow kooriska maqal iyo muuqaal. Kooriskani waa kooris lagu baran doono hagaajinta maqalka iyo muuqaalka iyadoo la adeegsan doono softwareka Premiere Pro iyo Socrates softwareka Adobe Audition oo ka mid ah softwarada caalamka ugu wanaagsan dhanka editing-ka. Wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada. mahadsanidin.